munaasabad looga dabaaldegayay sanadguuradii afraad ee aasaaska Jaamacada Baydhabo International University ee maanta lagu qabtay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Munaasabada sanadguurada afraad iyo qalanjabinta iyo bedelashada dufcadda labaad ayaa ka dhacday magaalada Baydhabo waxaana ka soo qayb galay dhalinyaro ardayda ka qalanjabinaysa Jaamacada Baydhabo International University, waalidiinta, ururada bulshada qaybahooda kala duwan ee ku dhaqan magaalada Baydhabo, macallimiinta iskuulada iyo jaamacadaha ku yaala magaalada Baydhabo, aqoonyahanno, barofesoro wax ka dhigay jaamacadaha dalka, agaasimayaal iyo xildhibaano xeer federaal iyo xeer dowlad goboleed. qaar ka mid ah wasiirada dowlad goboleed Koonfur Galbeed ee Soomaaliya, sidoo kale Senator Xuseen Sheekh Maxamuud oo ka mid ah golaha aqalka sare ee baarlamaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya, iyo sidoo kale gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleed Koonfur Galbeed ee Soomaaliya, waxa uu horeyntii halkaasi ka hadlay macallimiinta wax ka dhiga iskuulada iyo sidoo kale jaamacadaha ku yaala magaalada Baydhabo. in oo macnaha lagu dhiirigeliyo inay macnaha cilmiga beeraha bartaan. Si lagu dhiirigelinayo scholarship ay u baahan yihiin ardada, scholarship in laga wada bixiyo fariintaasi inay macnaha waxaan usoo dhiibanay wasiir ogaasan usoo dhiibanay wasiirka warfaafinta ayaan dhaxas usoo dhiibanay arrintaasi inoo naga gaarsiiyo dowladda in oon helno scholarship oo ardada jaamacadaha in laga bixiyo. marka aniga waxaan ku darsanayaa tan technicalka beeraha iyo xanaanada xoolaha ardadii baran lahayd hadda jaamacadaadkii way ku yiriin dibiga homayna kula qeyb qaatay hay'ado caalami ah sida ma aragtay itixaad atibaa'i al-arab waa midowga dhaqaatiirta carbeed barnaamijyaha ku dhammaytiya gobolada Kafuriidi maynasi voluntary ka shaqeeyay ardayda nursing ifadaasi jaamacadda BIU iyo waxa sanadii ma aragtay ifadaasi kilomaad jiraan iyo ku qeyb qaatay iqaadadaas saasoo dhan silsiladaas 2017 way ku qeyb qaadatay qaaflad dibiya oo furiyaasi hay'ad oo fadhiyay wadanka ma aragtay Kuwait oo la raw lajnada Afriqiya liliqaasa taasoo bismi jaamacada qadamay iyo ku qeyb qaatay jaamacadda ardayda in shan hermasi oo dambadbaadi dhamaan ma aragtay dadka Koonfur Galbeed hor andareera wali baan oo farkama qodna walbadan fiirtiyaasi furunti qolkii oo hoolweyn ee hadda ka dareertano bilowtan sanfadahay shaqo iyo ma aragnay walbarasho hor leh hadda horansi dareerka fadahay ya horan ku dareertan fadahay lama qodobka muhiimsan toona walbarashada horan wada toona suuqa shaqada tan suuqa shaqada ee dadka namada badan ku hadleen ciriiri badan ajar la socota oo ummaday intii fursado eediyay fursada oo yar iyo dalabaadkii ama ardadii habahaasi oo eedan badan waagi hore wali la rajalay ma arna ay dugsiga ku baahi shaqooyin dowladda haysiyo hadda almost ma arna dugsiga wal isku gudbi wali marahay jaamacada wal isku gudbi master markan hadda dadka ku shaqeeyahay amba khibrad gadad ku shaqeeyahay khibrad meeliyo lam walay ma aragna kolba antii isku ku baahi walay rafiyay laakiin wala tartamahay markan wali nagadana shahaadooyin iyo warqado nagadeen qof tagtay isla ida biinga kelmadda kaliya aan san arro wali wax marka lama adi doojala antii la shaqaalahaata sida dadka bulsho ay antii cuntada ku dhamaado shaqaalahaata $100 roogda nolol roogda ee intii aad hal abuur suubida ad wala kooyta adii banaga qofka la shaqeeyo oo booski aad naga yow marore interiye inuu interiye marayay interiye wallahi interiye dhibkaas anaga waa qabna afkooy waadana sidaas ana wala dhexda laga baxa ku badalka waa inaan ilowna dhalinyaro waa inuu noqdaa ku dhagiina ninkii fanaanka ahaa ee carab u dhashay intuu madaxda isugu yeeray oo kabankiisa uu qaatay uu yiri khud al manasiba wal makasiba idinka qaata manasibta iyo manfaca ولكن خلوني لنا الوطن لكن وطن كانوا دايما سياسي وحده تداري سميس قارو لكن وطن كان بربر كيسي دباتي سانشرين وإن الدليل إن أذكر تنها كل جيل ونقضى حب الوطن من الإيمان وطن كاي وإن الجعلاتا This is Baydhabo ada iskale Baydhabo shay markaan iimaanay wajhi bay lahayd ودكتين أنه ماشي لسه هيستي جوه يحمر ماشي لو مسلحه بالدولة ده يكون صحنا قاضي أمان كده يقول له بقى يبقى أول
ADC bay ku hanaqaatay meeshaas deganay annagoo joogno oo Baydhabo lagu warshaqeynay ee lagu midoobay oo wixii anaga khilaafna dhaxyilay ayaa Djibouti laga aaday waana ognahay Baydhabo anaga ku nool wixii nagu dhacay tacaskayna xataa in la gadiyay oo kama hayna aan ka orodnay oo mushkiladii nagu dhacday Baydhabo anaga joogno la qabsaday wax walba ha ahaato laakiin Baydhabo waxay ka mid tahay meesha loo baahan yahay inta ariikhda lagu qoro dawladda maanta soo noqotay meesha ay ka soo abowday ee ayada ku soo barbaartay ay ka soo hanaqaaday way haddii ay sheegayaan sheega dhulka qalinkiina maxaa ku jira biyo ma ku jiro qalinkiina wax ma qoraan you have to write your history magaalada way ay laay keesa oo maanta maxamed wadi u qaadan jiray asagoo mucaarad ah ayaa markuu wadankiisa uu soo noqday oo meeyri u eriyay ayaa heestii dadkiisa uu ku soo dhaweeyay ayaa wuxuu yiri ee wadankiisa asoo leeyahay أحبك بتضحك وذكي أدو قصلا يوم بجهلها وأحبك عبوس أدو بما تيسنو وجهي غاغا تيرايك مقتل بجهلها معنا هو برواقي أعرف أني على عن هلك كسلام يا مامك جامعة PRU أمبليان إذن الله هاي waxaan halkan ku soo dhaweynayaa kusimaha madaxweynaha ahna gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane gudoomiye soo dhawow halkan ugu mahadceliyo dhammaan waalidiintii asxaabtii iyo eheladii qaraabadii gacan ka geysatay maanta inaad marxaladda inaad soo gaartaan runtii waxa waa dadaalkii juhdiga idinku bixin isgarabstaaga idin garab istaagan waalidkaasi walaalahaasi iyo qaraabadaasi maanta waxa waa meel eber ugu meeda tagno marxaladda inaad soo gaarsiisaan runtii jaamacadda Bay International University iyo ardaydan dafcadan labaad ee maanta qalinjabinaysaba iyo anaga shakhsi ahaan laba taariikhood waxa waaye maanta halkan waxaa la leeyahay jaamacaddu waxay u dabaaldegaysaa sanadguuradii afraad oo ka soo wareegtay markii la aasaasay oo ku beegneed December 2015 haddaan qaldaneen taariikhda la sheegay runtii haddaad xasuusataan December anaga 2015 naftirkeed waxay ii tahay taariikh gaar ah oo 2015 December waxay ahayd markii la aasaasay midabada loo aasay baarlamaanka koowaad dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya haddaad xasuustaan xildhibaanadii ugu horeysay 89 ahayd waxaa la soo magacaabay la dhaariyay xilkay la wareegeen December 8 2015 runtii marka munaasabadaas oo dabaaldegaysa farguuradaas waxa waaye waa xusuus gaar ah inoo tahay runtii aniga mid kaloo ii gaar ayaa jirto oo dafcadan labaad maanta aan la wadaagno farxadda ii ah in ilaahay waxa uu iswaafajiyay December 20 sano ka hor maalin sabti ah waxay anigana maalinkii aan jaamacadda ka qalin jabiyay shahaadada runtii marka farxad gaar ah ii tahay maanta bishii ay tahay December sanadahan baa kala duwan waxa muddo dheer u dhaxaysa laakiin maalin waxay ahayd bil December maalin sabti ay ahayd markii runtii anigana marxaladdan maanta soo mar marka xusuus gaar ah ii leedahay insha Allah runtii waxaan rabaa marka wax walba waxa waxbarashadiisa aad ugu soo dadaasheen waxa weeye inaydan ka quusanin nolosha meesha aad rabtaan inaad ka gaartaan waa maalin maalmaha ka mida waad gaari doontaa laakiin waxaa lagu gaari doonaa waxa waaye dadaal lagu gaari doonaa sida hadda waxbarashada ugu dadaasheen beri waxa waaye marka qofkay fursad u sii hela inuu waxbarashadiisa sii wato Cabdullaahi Maxamed Cabdullaahi